بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم dhalinyar baa tihiin maa sha allah qulu maa sha allah dhahada maa sha allah dhahada alxamdulilah dhahada waktigee nolosha ugu fiicnayd baad ku jirtaan waana waktiga baa la yidhi dhalinyaradu ay waalan yihiin ma miyir qabaan intooda badan marka da-daas ninka dhallinyarnimadiisaas ilaahay ku gartee ilaahay ku caabuda ee daacadda ilaahay ku barbaara waxa uu ka mid noqonayaa toddobada ilaahay jalla wacalaa uu u hadhayn doono maalinka hadhka alla mooyaane hadh kale uusan jirin sabcatun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث يوم القيامة إلهي عز وجل هركي سمويان هرك لمجرى تضبط هرك إلهي هوزوك سنة إساء هلقى بنك قيامة كقبت بادي دون تدبات هذا قيامة جرتا waxa uu nabigu ku sheegay inuu ka mid yahay nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimadiisii ku barbaaray ilaahay daacadiisa yowma alqiyaama maalinka dadku ay saro joogi doonaan maahin maalin keliya maahin laba maalmood maahin laba bilood maahin laba sannadood waa 50 kun oo sannadood weeyaan waa maalinka nabigeena uu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka cadcaadda ayaa madaxooga la kor keeni doonaa cadcaadda ayaa dushooda la keeni doonaa qof walba dhididka jidhkiisa ka baxay ayaa dhulka intuu galo 70 xusul dhudhun intuu dhididku dhulka uu galo ayaa haddana qof walba dhididkiisu ku soo noqoni doonaa daada qof walba halkii dembigiisu intuu dembigiisu ahaabaa laga dhigi doonaa dhididkiisa qaar baa nebigu yihi sal alla alay wasalam kuraamaha ayaa dhididkoogu iman doonaa qaarna jilbaha ayuu joogsan doonaa qaarna halkaa guntiqabadka dhexirka la idhaah buu dhididkoogu iman doonaa qaarna garbaha ayuu iman doonaa qaarna wuxuu nebigu sheegay halkaa qowlalada ayaa dhididkoogu iman doonaa waa qof walba bad isaga u khaasoo cid kale aysan la qabin waa maalinkaasaa ilaahay leeyahay uu nebi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam toddobada ilaahay uu hooskiisa ugu hadhayn doono waxaa ka mid ah shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi caza wajalla nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisii ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa ilaahay daacadiisa ku barbaaray allah inaga dhigo maxaa ninka dhallinyarada loogu khasisay maaragtaan xadiiskaas oo looga mid yeela toddobada ilaahay u hadhaynayo laanna xilliga dhallinyarada la yahay waa xilliga la waalan yahay weeyaan waa xilliga ninka dhallinyaradu dhimashana uunan ka biqin xanuunna uunan ka biqin gaajana uunan ka biqin mustaqbal hor yaallana uusan jirin ee nolosha dhan ee adduunyada uu haysto in dadku sidiisa ay wada yihiin dhallinyarnimaduna waa qayb ka mid a waalida weeyaan
marka ninka da'daas ilaahay ku caabuda ee masaajida ku camira ee diintiisa ku barta ee cibaadada iyo khayrka ku dadaala fadligiisu caadi maaha waxa uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyay qisas fara badan oo dhalinyarada ku saabsan quraankuna waa ka warramay oo quraanku wuxuu ka warramay asxaabul kahf innahum fityatun آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلهي بشيء دلنيرة هايين با إلهي دلنيرة آمنوا بربهم رب قد بالرميين وزدناهم هدى با إلهي أنا كنا هنون بانو بيرين با إلهي هنون بانو زيادة لي ودن waxay ku noolaayeen ninka boqorka wadanka xukuma oo dadka ugu yeero inay dadku isaga caabudaan oo la oran jiray magaciisa Tuqyaanus marka iyagu ilaahay bay garteen dhalinyaradaas id qaamu faqaalu rabbuna rabbus samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا dadkii kale oo dhan ee wadanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka boqorka caabudayaan ilaahu haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen may kan waa bashar markaas boqorkii baa loo sheegay lagu yiri wadanka waxa ku gula nool dhalinyar maaragtaan ilaahay rabbinimadaada inkiraysa marka uu ciidan u soo diray marka dhalinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaan diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imma in intoo iyaga sida u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا إياك بكشيك يويري هدينا قبطان وعيدا كأبقر كنا صدر أين هلالان وأي قعنت نقول لقان لما مد بين نقول سمين كران إما إني ملدو دا قال لماذا ديب نقول عليان إما ما ركتان إني نقحي نقول دلان مركا وحي فضلان inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintooda iyo iimaankooda islaamnimadooda ay u xafidaan inay aabayaashooda iyo hooyooyinkooda iyo ahladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan waa meesha ay culimadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tagtaa صاحب حن oo iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa almar'u ala diini khaliilihi falyanzur ila man yukhalil ba nabigu alayhi salatu wasalaam qofku saaxiibka diinta uu qaba ayaa diin adigana ku noqonaysa ee nin walow ninka la saaxiibaysa iska eeg bu nabigu alayhi salatu wasalaam waa mujtamaca dadna dhalinyarada waxay door bideen waliba waxa la sheegaa oo kutubta ku qoran ciyaal saboola ma ahayn oo dadkoogu fuqara ma ahayn bal waxay ka soo jeedeen reero wada aqniya iyo xoolole ay ka soo jeedeen oo maalqabeena sijaayadka ay soo laalaaba yar dib ku fadhiisanay ma la fahmay allah ina fahamsiyo dadna waxay door bideen marka wadanka dhanba inay iskaga tagaan markaasay waliba waxay baxeen baa la yiri xilligan oo kale magaalada ka baxeen xilliyadan oo kale mid ka maqnaa markay tashanayeen oo xoolihiisa markaa soo daajinaya oo aygiisiina uu maaragtaan uu la socdo kiibay u yimaadeen waa u sheegeen waxay yiraahdeen anagu wadanka waan ka tageynaa waa ka soconaa ومحاد uga socotaan waxay yiraahdeen diin iimaanka iyaga ayaa qaaliya iimaanka qaaliya
aaminaadda ilaahay aan aaminnay baa wax walba nooga qaalisanoo waddanka dhan waan huraynaa laakiin iimaankayga islaamnimadeeda cidla dhigi mayna bay ku yidhahdeen dalka waa mise diinta waa midkay doorteen ya diintay doorteen dalku ha baaba ay yidhahdeen ha ka tagna dalkayaga dadkayaga han weyno laakiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystayeen na seegin bay yidhahdeen daadna markaasay kiina uu raacay markaa aygii markaa isaga la socday adhiga la ilaalinayay ayaa damcay markaa inuu raaco markaasay ku yidhahdeen aygaagan uuna sheegaya naga reeb markaasay yidhi de waayahe reeba dhagax bay markaa harraa kala joogsadeen baa la yidhi luqadii markaa ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yidhi ilaaha aad caabudaan aad rumayseen baan aniguna u qaanaa inuu yahay rabbu samaawaati waalardi maxaa seekeen reebaysaan iska kii dhaafaani raaci buu ku yidhi ay galabta af soomaalina kula hadla ka warrama sidee noqon lahayd magaalada gaarisa waa iska daayeen marka aygii markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinayaa raadkoogaa lagu taagan yahay waagii markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa berigii markuu dhowaaday ayay arkeen markaa kahfay arkeen kahafka wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan markaa bay idhahdeen halkan hangallo maanta oo dhan halkaa han oollo caawa cadceeddu fiidka galabta markay cadceeddu ay dhacdo oo dhulku madoobaadana han sii soconno ila maalin haddaan soconno waa layna soo arkaya markaasay seexdeen ilaa xalay oo dhan waxay ku jireen socod bay ku jireen safar way daaleen way seexdeen markay casar gaaban markay soo kaceen ayay is yidhaahdeen markaa sidan kuma socon karno safarka lama gali karnee waan gaajoonaynaa waan harraadsannahay cuntaan u baahannahay raashine bal nin wallow jeebadaada wixii lacag ku jirta intood soo saarto ninka inoogu maaragtaanay inoogu socod fiican ee noogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tanoo nagama fogay ha inoogu noqdo deedna raashinna ha inoo soo gado haddii laakiin la garto oo la qabta isaga yuuna na soo sheegina isaga keliya dhibaatada ha ku ekaato ku salliya nabigeenna sala allahu alay wasalam deedna markaasay waxay bilaabeen markaa kii baa magaaladii galay raashinkiibuu soo iibiyey markuu lacagtii dhiibis yidhi ayaa lacagtii la fiiriyo sidaa loo eegay ninkii maqaayadda ama dukaanka lahaa baa ku yidhi lacagta hakeed ka keento wuxuu yidhi jeebaddeedaan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin markaa buu yidhi adiguna xaggeed ka timido aniguna meel aan dheeraynoo dhow baan ka imiday buu yidhi lacagtaada iga qaado alaabtan isii markaasuu ku celiyey lacagtan halkeed ka keentay lacagta anigaa watoo jeebaddeedan ka soo saaray oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblaayaan ka imidoo maba dheeri meeshaan ka imidee meel dhow baan ka imidee lacagtaa iga qaado baaqiga ii soo celi dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa laba ninkan lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaasaa yarkeera u naxay marka harraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin anagu dad muslimiin aan nahaa la yidhi oo dadka ma dhibno waxaan la yaabanahay lacagtan aad wadatee leedaha waxay kaga gada waxaa laga joogaa xilligay waddankan ay ka shaqaynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yidhi meeqa sano 309 sannadood waa 3 qarni maxaa tihiin muslimiin muslimiin yaad aaminsan tihiin allah boqorkii boqorka waama noogu dambaysa annaka maba garanaynaba ma soo gaadhina waan maqallay mooyaane aduu halkeed ka timid annakoo dhallinyar baan ahayn buu yidhi boqorkaa baan ka baxsannay habeen dhan baan guuraynay waagii markuu baryu ciyaadu ay soo baxdayna god baan gallo godkii bay dhallinyartii igu sugayeen hadda oo waxaan u ballansanahay caawana safar kale inaan bilowno sii baxsanno waxaa la yidhi waad war laadihiin 3 qarni buu adduunku socday
waa la soo qaaday kii yaraa boqorkii waddanka xakumaya muslimka loo keenay waxaa la yidhi boqorkaasi boqor daaciya buu ahaa oo dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedha marka dad waxaa jiri jiray oo dalkiisa jooga oo dhimashada in bacthi la soo bixi doono in intoo la dhinto khalqiga la soo saari doono inkirsan baa jiri jiray marka daliil buu markaa u helay markaa sariixa oo markhaatimo doonto ah boqorkii iyo waxayse soo raacay iyo ciidankii iyo madaxdii iyo yarkii waxaa dhallinyaradii noogee markaa buu idhi haddii aan hadda ininkoo ila socda aan ka kor dego way iga naxayaanoo in lay soo qabtoon iyakana aan soo sheegay bay imoodayaane anigaa horta u tegaye ininku ii kaadiya buu yidhi waana ka dhaadhicinayaa mawduucu siduu yahay ardulwaaqicaan u sheegayaa in caalamku socday oo noloshoodii iyakana ilaahay joojiyey nolosha ayaa haya baadna may cunin biyana may cabbin tintoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin awooddoodii ismay bedelin maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin yaa ilaaliyey markaa yaa ilaaliyey yaa arsaaqaayey yaa baahidooda daboolayey ayaa nolosha ku deeqay biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaada odhan karnaa qur-aankaan ilaahay ku sheegay laakiin asbaabtaasi waa asbaab walaakin ilaahay qofka bini aadanka inuu nooleeyo bilaa baad iyo bilaa biyo uu karaa ma daliilu calaa daalika laga yidhi asxaabulkaaf baa u daliila saddex qarni bay joogeen caalamka iyagoo biyana aanan cabbin baadna aanan cunin waana sidooda ismay bedelin walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 qur-aanka ilahay ku sheegay godka waxay ku dhex nagaadeen baa ilaahay yidhi 309 sannadood bay ku nagaadeen baa ilaahay yidhi waana sidooda ismay bedelin iyagu innaka imika alxamdulilah iskuul baad dhiganaysaan waxbarashaad u timaadeen halkan waxaa laga yaabaa waalidadiinna qaarkood markay waaninayaan inay ku yidhaahdaan aabbo mid baa inamadiisii ku yidhi aabbo imtixaankii baa la marayaa soo maahayn haa dee bariiskiina u shaqaystay buu ihi bariiskanaad cuntaan waa kaygii ku yaroo markaa dacwadda baxay oo iimaaniyaadkii oo aad caqiidada si fiican looga dhaadhiciyey buu dhalayo markaa buu aabba ha iga xanaaqine adiga iyo aniga iyo hooyo iyo kan iyo tan intuba hee bariiska ilaahay baan cunnaa buu yidhi aabba markaa buu adiga tabliiqaa ku waalay buu yidhi usalaya rasuulka qisadaasi asxaabulkahf waxbarashada ma diidayno wax noo barta waan u baahnay inaad wax noo barataan oo qofka muslimka oo qooyahan inuu noqdo waan u baahannahay laakiin haddaad tidhaahdid maaddadan aan dhiganayo tacliintan aan dhiganayo maan wax ku cuni karaa haddaad tidhaahdid caqiidadaada khalal baa ku jira iska sax arsaaqaduna waa gooni tacliintuna waa gooni iskuma xidhno quwadda ilaahay ku siiyeyna waa gooni arsaaqadda lagu qadare lagu qorayna waa gooni khibraddaa taqaanidna waa gooni arsaaqadda ilaahay ku qadarena meel bay taallaayo waa gooni shaqo iskuma leh sideeda wax u baro waa gooni waa tacliin gooniya waa loo baahan yahay lagamana maarmi karo laakiin inaad tidhaahdidu tacliintaa baan arsaaqadayda ku xidhan tahay taasaa laga digaya oo lagaaga digayaa maasha allah allah ina barakeeyo khayr baa inaga muuqda iyo jacayl ay inaga muuqata jacaylo diineed yarkii yaraa marka boqorkii iyo ciidankii la socday uu joojiyey isagaa marka dhallinyaradii buu soo galay yidhi ka dhaadhici in dhulku uu dhaqaaqay uu caalamku socday noloshoodana ayaka la joojiyey ka dhaadhici buu is yidhi marka allii markuu u yimidayba wuxuu u yimiday iyakoo naftiga ka wada dhacday ilaa intuu maqnaa ayay yidhahdeen hurdada ku siyar noqda deedna way ka dhacdeen naftu iyakiiba isagii markuu soo galoo dul yimiday uu arkay inay wada dhinteenna isagiina ilaahay ruuxdii buu ka qabtay boqorkii iyo khalqigii la socda markay raagsadeen ayakii baa markaa ka daba yimid oo waxay u soo galeen dhallinyartii oo wada mayda waa ka odhanaya boqorku lanattakhidanna calayhim masjida marka u soo galeen hay-addoodii ismay bedelin
dharkoogii isma bedelin quwadoodii ismay bedelin waa sidoodii caalamka 3 qarni buu socdo dhaqaaqa imisa ummadda la 3 qarni imisa laakiin iyagu waa sidoodii ayguna waa sidiisii markaasaa ilaahay wa nuqallibuhum وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بإلهي سقوا إلهي نبي سأو الرمى عليه الصلاة والسلام بالقيري أدعادوا حقها مركة كتمادنا حقنا هركة أمرنيني هرك حتى جركو قاعد هذه ما تهبنين بالليل لكن دي الرمات هي اللي جايين بالليل بني آدم كجركيسو مقدنا وأوبا هيا هي دي الرمات عددنا جركا وأوبا هيا هي جركا بينا وأوبا هيا هي بعدنا وأوبا هيا هي معانا وأوبا هيا هي دنانا وأوبا هيا هي إلا صعودنا وأوبا هيا إلا نصينا وأوبا هيا هي وعلى العاد مركة حقها كتمادنا حقنا هركة إلهي أوكينا وعلى ولبا مركة سائلة ونقلبهم وقلبنا با إلهي مركو دنا عن ودالبا حاجة كلام الرجينا حاجة مركو دالنا حاجة كلام الرجينا لكن أيجا إن الرجيا لما شيء نسقى وكلبهم باسط ذراعيه أيجو زاس وهردا سوس هذا أيجو أفرت الدين بدل كودتا بقنا بدل كوكبتا وصح ذا ما ده حنا دنا كودك ساودجا بني آدم كوال الرجيا يجركوجا لكن أيجا لما الرجينا أيجا محل الرجي وايبا ليدي قرآنك وحو شيغيا وعلم عجيبة قرآنك وحو عديو شيغي أيقو بقي سبالة لجرك بن آذك وكأذك يحي لذلك أيقو صدح بغل أو الصنو بقي ساعلو صدلكو كوهي اسمنا بدلن أما بن آذك يساق ولا الرقية مر والبا نندختر أو جرمنا أي التكنولوجيا دا عصرقا أي قالوا أي وحوالبا أي باربارين وحكو قادي آيات دا قرآنك الله كانوا لي آيات دا أخرسو وبعد جرك بن آدم أي بقي سفرك كأوضح هي وحو أجاد علمك أيا كني بن علمك إيش شجع آيات القرآن كعلمك أيا شجعي أنا أقول علمك هذا عن هاللي بكلية وآلات كان أكو هاللي وكو اكتشافنا بن آدم كجرك يسوع ساعة وحكب بدن إنه دنا عوجي فكرين أما أيجو إنه بغلال صار حاجة عوجي فكره آلات كان أكو هاللي علمك إنك أيا إيش شجعي وعلى العلمك وحكوس صدقي نبي الأمي الهاشمي القريشي نبي أمي معنيه سواء معي وكايسقوا أنا قاعد يسوي حنا كقرينين وحلا قرنا أنا آخرين كرينين نبي عليه الصلاة والسلام كصليا نبي قاس قرآن ككسر دقيبة كور رميا إنه أيجو صدح قرن وبقي سكوجيفه مرقاس النبي قال لقول هداد كبح لحيد أيكو قد كجيفة أدو تجي لحيد مرقوه الرئيس قال لقول هي قلبك عبسي بقى لقى بوحين لها مركز أركتنا واد بحسن لها يدبا النبي قال له ويلي آيات مفسرين وحي شيئا ولا أركا يدا اللي يراد أين قدك كجران لأنه وصدح قرني ويان ولا أركا لكن قف لي قف كي أركبان لا يدي مركو أركبه وبحسن هاي مركو سيجي سنة عبسي بقى كل عيسى قلبك يسا لأنه مسكع دي الذاكرة دي سوى حين وأركبه ولا مسحها إنه أركبه ولا مسحها يا كما صحي يا كما صحي الله إلهي لأن إلهي عز وجل قدرة ديسو هي سنة ديسو نظام جاري وصعتوية قدرتنا سنة كسر رسالة ولا أركاي قف اللي يقف كي أركبان وبحسن هاي مركو سيجي استنى بالله قلبي يسوي حال لقول ذا عبسي بالله لقول ذا يقف قاس عبسي بالله لقول ذا مركبة عبسي قصة دودي قرآن كان لقول شيء قرآن كنا ومنزل إلهي حقي سوك سودقي وكلامك إلهي عز وجل ذات هذا إلهي بقرآنك كصوبحي جبريل بالله صودي عليه السلام جبريل قلبك نبينا عليه الصلاة والسلام بقرآنك كو أخري كو رجيي مرقى قصة قرآن كان لقول شيء سو قصة علوس ما حل لقول شيء ما تقانا لأن حلق دلنيرني ماذا ونك دلنيرادو ولو عليه ولا يهي وقتك الله الصعداء